Soomaali Maxamed xuquuqa iga dhaafa aan qof madriig ma galin dix video aan soo galiyay inta aragteen waxa waa dhigteen waa la socotaan. السلام عليكم صباح wanaagsan maalin wanaagsan dhamaan asxaabta meel walbo adduunka joogtiin isu soo naqadan buuxiisa leh waa aniga walaalkiin maxamed update halka toos nooga la socotaana waa maqaaxideena baaray dhaafin hadii aad nagu cusubtaa oo ay tamar ku wareysano soo booqatay waxaan si xushmad leh kaaga codsanaynaa inaad subscribe noo saartid gambaleelka rukuma channelka si aad u noqotid qof ugu horeeyo na daawado hadaa horey noola socoto kamid ahayd asxaabta hore noogu xidhneedna waa ku mahadsantahay lasii joogtaankaaga kaliya waxaa laga rabaa like-ta maqaaxida like-ta inaad dhac isaga siisid oo wixii fikradaada ee commentiga aan noogu reebtid share raa sii dhahdid dee like waxay naga caawinaysaa muuqaalka inuu meel dheer gaaro like waxay noo tahay dhiirigelin ha dhaafin ayaanta waa dhaaftay like waa aragnay inta waa free day oo ku mahadsantiin kuna soo dhawaada channelkeena subax kale jadiid ah horta kafeega ayaanta waa iska daay shaahan bartay shaah madow aan qacga sii barto kafeegi dad badan way soo qori jireen war kafeega madow iska daa bag xanuun uu leeyahay waaba arkay af qareer bag xanuun ani dhan xanuun joogtan ka bixi waay alxamdulillah markaan iska dhaafayna waa fiicnaad marka kafeega hal cabo laakiin yaa la badsan kafeega subaxi wuu fiican yahay laakiin yaa la badsan waxaan rabaa marka wixii cusub caalanka jecel muuqaal hadda aan arkay oo TikTok aan ku arkay oo Soomaalidana waa taqaanid comment ku dhigle wala TikTok noloshaada ma rabtaa inaad waxba laga sheegin hada comment wax ka xanaaqis public hakiin waa gabar Soomaaliyeed qoys Soomaaliyeed ma dhahna mis qoys waxaan dhahnaa Nigerian ninka Nigerian waa leedahay kulli waa Africa on nin Afrikaana way Nigeria Tanzania wuxuu yahay Afrika weeyo anaga Afrikaana nahay gabar Soomaaliya oo guursatay nin Afrikaana oo Nigerian ayaa la igu sheegay Nigerian iska dhacday haduu ahayn ma ahan nin Nigerian guursatay oo caruur u dhashay oo TikTok soo gashay aydi xaajigeeda laakiin sida loo karbaash noloshiida ma arag bal waxa ay isla daawano si xun ayaa waraba inaan Soomaalidan wax u sheego ayadan waxaan u sheego Soomaaliyan kuma baran oo qaada lama dhicin hadalkaagu ima marin malab layma kamarin gabadha waa ujeedin ayadii xaajigeeda waaye iyo gabar yaray u dhashay maasha Allah ilmaha aabay buu eegimba anuga caruur kale u dhashay fiidiyogaas ay soo dhigtay oo heeska ay qaadayaan ayadii xaajiga laakiin maxaa ka dambeeyay comment ku dhigle si xun u karbaashay hatta commentiyada qaar ku ugu yaabka badan waxay ahayd inaan soo qaato ma jecli laakiin hal ilabo habaar waalid markuu kugu dhaco waa sidaan oo kale habaar waalid markuu kugu dhaco waa sidaan oo kale koo badan waxay soo qorayeen way ajiriirta Soomaalida loo diidaa jiriirta kale oo wadamada kale loo guursadaa gabar ayaa soo qortay commentigaas mid kale uu jawaabto tiri dii haduu muslim yahay way guursan kartaa waa sax gabadha haduu ninka muslim yahay way guursan kartaa markaas loo sii jawaab Soomaalida qaamade jiriirta Soomaali joogto oo walaalaheena oo nagu af ah oo ayaga kuwaas muslimiin ma ahmiya marka gabadhan way soo hadasheen way ayadoo ka cabanaysa Soomaalida oo ku hayso cunsurinimada la iska daayo walaalayaalow bal ay isla daawano ayada dab yar ma shito ha keenay dadka dhaxdeeda ha keenay waat shukri Allah ma sha Allah maama Soomaaliyeed way caruur ay u dhashay wax walbana calafka ka weyn ayada ku qanacsan ma iska diisiin alaykum rahmatullahi wa barakatuh anigo shukri oo ina salaamaysa walaashiina shalay saddex video baan soo galiyay videodaas waa channel badan baad ka bixiseen commentiyo badan baad ka bixiseen marka walaala intii khayrka ka hadashay aad buu mahadsantahay shukri Ibrahim Allah shukri Ibra u qoran TikTok-eeda waa soo boqon karteen shukri Ibra Allah okay gabar ma sha Allah Soomaaliyeed aad u qurux badan ilaa Soomaaliyeed waa shadiin ila anaga magaca is agjoogna hiblaayo ninka waa shiday anaagta washidna ninka dansay ay islaan moogi Afrikaantaas kala daa u galno arab aan qanina arab saaxib gabar aad u shidan tahay ma sha Allah intii xumaanta ka hadashayna ee walaalada way wali wuxuu ma qabi ra'yigooda ka hadleen
marka Soomaalina shuyuuqdii ayaa hadday imaadaan tiktok ama social media la keeno ha shuyuuqdii waa fiidiyoyadu haddii la keeno ayaa commentiyada qaar lagu jafaa dislike xataa la saaraa marka adoo nin ajnabi hadda afrikaana keensaday afrikaanaga dhan waa nahe dee in lagu jafaayo ku tasho waxaan leeyahay marka soomaalidan fariina u diraya ayadan hal fariina u diraya horta ku socayas meel kasta aad joogtaan haddii habeenii tahay habeen wanaagsan maalin tahayna maalin wanaagsan Soomaali Maxamed xuquuqa iga dhaafa aan qof madriig ma galin dhex video aan soo galiyay haka xumaa wallahi billah haka xumaa Soomaali lisfaquuqayo liskarbaashayo adoo ogaa social media u keentay kuwa waxay dhaheen war ninka sidaa u fol xun oo haysatid ma social media ku haysatid guriga ku haysatid maxaa social media u keentay maxaa social media u keentay marka gabadhe koley Soomaali dad faquuqa laga dhaafo caaydo karbaashka laga daayo markaas bay ugu daraan ma dhaafno anaga wallahi video ay la taagan tahay oo ay heesayaan commentiga ugu badan oo caay ah ayaa loo soo gudbiyay weligay ma arag war laba qof ama saddex qof amal aan arkay war hadduu muslim yahay iyadana ku qanacsantahay ha laga leexdo inta kale waa karbaashi waxba uma reeban Soomaali Maxamed xuquuqa iga dhaafa aan qof madriig ma galin dhex video aan soo galiyay inta aragteen waa dhigteen waa insha Allah Soomaali kulay fuquuqa dhaafi maysi adkaysi yeelo walaashay adiga adkaysi yeelan ku dhilaani waayo Soomaalida dad waxay ciwaano u sameysteen kaliya ciwaano waxay u sameysteen TikTok in ay dad ku jafaan bis dada u jiido comment ku dhigriya la dhaho meel ku jiro team comment la dhaho wax un jafaay marka adiga diyaad hadana nin afrikaan oo hadana oo waxa lagu sii qabsanayaa jareerta wadanka la diidaa leeyahay jareer kale hadaa keensatid Soomaali ahaan inuu muslim yahay kala xataa la ogeyn adaa oge ilaaha oge wali muslim kacbada sawirkeeda gadaal idinku dhigane dulqaad yeelo laba mid aan leeyahay gabadha waxaan leeyahay laba talan siinaya bis oo ah in aad dulqaad yeelatid oo comment walba lagu soo qoro aadan aqrinin wallahi commentiyada loo soo qoray qalbiga aad u dhaawacayaan anaa ka xumaada hadday ku dhaawacayaan commentiyadaas inaad iska xirtid commentiga fiiriya taamut meeqa option haysata comment walba xun inaadan aqrinin inaad delete dahdid ko inaad commentiga iska xirtid labo meeqa haysata meeqa in ninka lagu caaynaay adiga ninka lagu caaynaay aadan keenin social media war xaaji meeshan joog aadan kamerad ka soo duub oo meesha keenin TikTok ma aha Soomaa dulqaadkaas ma lihid intaas ma sameyn kartid de iska dulqaad marka afkaaga qabso shibdhe labaas mid leeyahay ama dulqaad u yeelo Soomaaliya ka shaqeystaan shaqay wada Soomaalida ma ogid ha adeegtaan ama ha keenino si aad u badbaadid waa kana muuqaalka aad loo karbaashin markaana waa adiga xaajiga heesta fiidiyowga kan waa kan ugu caayda badan marka Soomaalidan waxaan leeyahay walaalayaalow reerku waa reer isqaba caruur u dhashay xijaaban caruurtooda kulli Afrika jooga Soomaali meesha jooga wadankii ku wada nool ayaga isku qanacsan ayadaa ku faraxsan ayadaa meel keensatay ayadaa duubatay dhibka kugu hay maxay isaga aamus iska dhaaf u dhaafa qofku wuxuu rabo ha keensada isaga dhaaf laakiin waxaan leeyahay Soomaalida hadaan nahay wallahi inna been idin sheegay dadka adduunka ugu cunsurisan ugu xun ayaan hadaa Soomaali nahay sababtoo ah adduunka kama jirto laba qof oo isku luqada isku diina isku dhaqan oo qofka haduu xanuunsan soo booqanayo masaajidka isku tukanay qofka haduu geeriyo tacsiid u raacay haduu dhib gaaro soo booqanayo muslimiin isla hadan la leeyahay isma guursan karno jareer jilaacan kalnay reerkaasana isma geyno waligeeda kama dhicin cadaan dhimado isguursan adduunka anagii Soomaalida ayana isfaquuqno marka gabadha haday baxday ninkaas ay keensatay ayday nasiibkeeda calafka jacaylka calafka ka weelali nasiibkeeda awlaadii u dhashay maxaa ka wanaagsan maanta awlaadu adduunka jir waa may
hadiyada ugu qaalisan ilaahay uu dadka siiyo marka waxaan leeyahay Soomaaliyeey kulli caaydeyn meesiine gabadhan commentiga ka yareeyay abay adeen waxaan ku leeyahay waa la faquuqay hal la dhaafay Soomaali kaaga hari meesay ama xaajiga guriga keenso ama commentiga xiro ama dulqaad yeelo wixii lagu soo qoro dadkan iska dhageysa iska inta tir bye bye inta ugu baxaya assalamu alaykum warahmatullahi